الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ولو حنكو دحجرنا سورة البقرة waxaan noogu soo dambeysay qisadii nebi aadam calayhi salaam iyo ibliis. waxaa noogu soo dambeysay in ilaahay amray malaa'igta inay u sujuudo aadam, intaa kadibna ay wada sujuudeen ilaa ibliis maahane. waa diiday, wuu kibray, kaafiriintuu ka mid noqday. waxaanu ku niri buu dhahay ilaahay, aadamow adi iyo sawjadaadaba jannada askuna oo dega, waxaad ka cuntaan meel allaala meeshii aada doontaan, hana u dhowaanina geedaan, haddaad u dhowaataan daalimiintaad ka mid noqonaysaane. shaydaan baa ku simbirixiyey, wuxuuna ka soo saaray waxay ku dhex sugnaayeen. waxaan ku dhahnay buu dhahay ilaahay, hoobta oo ka dega meeshaad ku jirtaan, qaarkiin qaarka kale ayuu cadow u yahay. gobolka kale ayuu cadow markaa u noqonayaa. waa markuu shaydaankii simbirixiyey, arlada mustaqar iyo makaanu sugnaasho idin iyo raaxo ilaa waqti laga gaaro. nebi aadam wuxuu ka helay, uu kala kulmay rabbigii xaggiisa kelimaad. wuu soo laabtay oo fataaba calayhi, kelimaadkii buu ku tawbo keenay. allana waa ka tawbo aqbalay. innahu huwa atawaabu araxiim. ilaahay alla tawaab ahoo toobad aqbal badan oo naxariis badan buu ahaaday subxaana wa tacaala. qulnaa waxaanu ku niri ihbituu, hoobta ka dega, minhaa jannada xaggeeda, jamiican dhammaantiin hoos aada. fa imaa ya'tiyannakum hadduu idinkaga yimaado minii xaggayga hudan, hanuun hadduu idin yimaado, xaggayga hadduu hanuun idinkaga yimaado, faman tabica, qofkii raaca, hudaaya, hanuunkayga qofkii raaca, falaa khawfun, cabsi, calayhim korkooda ma ahaanayso. meeshay u socdaan iyo mustaqbalka ay ka cabsadaan, walaa hum, mana ay yaxzanuuna, kuwa markaa murugoonaya. waxay adduunka oga tegayaanna ka murugoon maayaan, meeshay u socdaanna ka cabsan maayaan. ilaahay wuxuu tilmaamay mar allaala markii dhacdadaa ay dhacday in dhammaan lasoo hoobiyey. qulnaa waxaanu ku niri ihbituu, hoobta oo dega, minhaa jannada xaggeeda, ama minhaa meesha xaggeeda ka taga, jamiican dhammaantiin. fa imaa ya'tiyannakum hadduu idin yimaado, minii xaggayga, hudan, hanuun hadduu idinkaga yimaado, wax uun lagu hanuuno kitaab ama nebi ama wax xaggayga aan ka soo diro, xaggayga idinkaga yimid, idinkoo adduunka joogay meeshaad u hoobateen, hadduu idin yimaado, faman tabica, qofkii raaca, hudaaya, hanuunkayga qofkii raaca, falaa khawfun, cabsiimo, calayhim korkooda ma ahaanayso. waxay ka cabsanayaan iyo meeshay u socdaanee mustaqbal ma jiro. walaa hum, mana ay yaxzanuuna, kuwa markaa murugoonaya. waaladiina kuwiisa kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeena, ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari, naarta asxaabteeda waaye, hum ayaguna fiihaa, naarta gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan. intaysa kufrisa oo beenisa aayaadka ilaahay, naar asxaabtiisay noqonayaan, wayna ku dhex warayaan. waaladiina kuwii kafaruu kufriyey, beeniyey oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeena, ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari, naarta asxaabteeday ahaanayaan, hum ayaguna fiihaa, naarta gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan. yaa banii israa'iila, reer bani israa'iiloo awlaaddii yacquub ahayd, ummadihii annaga naga horreeyeyna ka mid qisadooda aada loogu dheeraan doonaa, meeshana markaa laga gelayaa. yaa banii israa'iila, reer bani israa'iilow, udkuruu xusuusta oo xusa nicmatiya,
nimcadayda xusuusta allatii taasoo ancamtu aan nimceeyey calaykum korkiina. nimcooyinkii faraha badnaa ee aan idiin qabton dushiina ku nimceeyey xusuusta. wa awfu oofiya bicahdii ballantayda oofiya uufi aniguna waan oofinayaa bicahdikum ballantiina. wa iyaaya ani unna farhabuuni iga yaaba, ani aliya iga cabsada ayuu yihi ilaah subxaana wa tacaala. reer bani israa'iilay waxaad xusuusataan nimcadayda taasoo korkiina aan ku nimceeyey. yaa bani israa'iila awlaadii yacquubow udkuruu xusuusta nicmatii nimcadayda xusuusta. allatii nimcadaasoo ancamtu aan nimceeyeyon ku nimceeyey calaykum korkiina. nimcooyin fara badan ayaa loo qabtay ayagoo faahfaahsanna qur-aankay noogu imaan doonaa. wa awfuu bicahdii ballantayda oofiya marka. aniga ballantaad iga qaadeen iyo wax allaala waxaan idinkula ballamay taa oofiya uufi. markaasaan anigana oofinayaa bicahdikum ballantiina. wa iyaaya aniga oonna farhabuuni iga cabsada ama iga yaaba. wa aaminuu rumeeya bimaa anzaltu wixii aan dejiyey musadiqan xaal uu yahay kii rumaynahaya limaa macakum waxa micigiina ahaaday. walaa takuunuu ha ahaanina awala kaafirin kaafir kuwa ugu horeeya bihi aayaadkii iyo wixii aan soo dejiyey ku kufriya. walaa tashtaruu hana iibsanina oo ha ku gadanina biaayaatii aayaadkayga hamanan lacag qaliilan oo markaa yar. wa iyaaya fattaquuni aniguuna markaa iga cabsada. war reer bani israa'iilay rumeeya kitaabkii aan soo dejiyey waa kitaabka qur-aanka. war nebi maxamed rumeeye oo ku camal fala oo amarkii wuxuu idin keenay qaata. wa aaminuu rumeeya bimaa anzaltu wixii aan dejiyey wixii aan soo dejiyey rumeeya. waa kitaabka qur-aanka meel kale kama imaanin, wax kalena ma ahee musadiqan wuxuu rumaynayaa limaa macakum waxa micigiina ahaaday. waxa idinka micigiina ahaaday laa takuunuu ha ahaanina awala kaafirin kaafir kuwa ugu horeeya ee ku kufriya bihi qur-aanka. walaa tashtaruu hana iibsanina ha ku gadanina biaayaatii aayaadkayga hamanan xoolo hanti iyo lacag qaliilan oo yar. wa iyaaya fattaquuni ani keliyana markaa iga cabsada. walaa talbisuu ha dheehina ha ku dhex derina buu yihi ilaahay subxaana wa tacaala alxaqa xaqa bilbaaili baatilka ha ku qasinoo ha ku dhex derina. oo wataktumu alxaqa xaqi aada qarisaan markaa. haddii xaq iyo baatil laysku daro ujeedadu waa in xaqii markaa la qariyo. taa ha samaynina. wa antum idinkoo taclamuuna og idinkoo og arrintaa inaad samaynaysaan oo xaqii aada qarinaysaan. taa marka ha samaynina. walaa talbisuu ha dheehina ha ku labisina oo ha ku qalbina alxaqa xaqa bilbaaili baatil ha ku dhex derina. wataktumu alxaqa xaqa ha qarinina macnaha. oo wataktumu alxaqa haddii kale haddaad baatilkii xaqa ku dhehdaan ood ku dhex dartaan ay dhacdo markayda xaqii qarisaan. wa antum idinkoo taclamuuna markaa og. wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga oo tukada. wa aatu zakaata sakadana guta oo siiya masaakiinta iyo dadka mudan. warkacuu rukuuca macnaha dukada maca araakiciina kuwa rukuucaya micigooda la rukuuca. rukuucda iyo sujuudda salaada nebi moxamed ay leedahay raaca. taa la rukuuca oo la tukada. amase warkacuu rukuucoo dukada maca araakiciina kuwa rukuucaya micigooda keligiin ha tukanina. oo jameeca taga oo jameeco raadsada. wa aqiimu asalaata salaada ooga oo tukada oo hagaajiya mid istaagsanna ka dhiga. wa aatu zakaata sakadana guta oo bixiya oo siiya masaakiinta. warkacuu rukuuca oo tukada maca araakiciina kuwa rukuucaya micigooda la rukuuca. ata'muruuna annaasa ma dadkaad faraysaan bilbiri samafalka iyo wanaagga. watansawna ma halmaamaysaa oo ma ka tegaysaa anfusakum nafafyaalkiina. wa antum idinkoo weliba tatluuna alkitaaba kitaabkii aqrinaya. afalaa tacqiluuna miyaadan caqli qaadanaynin.
kuwa caqli qaata oo ilaahay diintiisa ku dhaqmoo raaco caqliyeeya miyaadan noqonaynin afalaa tacqiluuna kuwa caqli qaadanaya ma noqonaysaan miyaa ata'muruuna annaasa war reer bani israa'iiley ma dadkaad faraysaan khaasatan culimadoodii bilbiri miyaad faraysaan fiicnaanta biriga waa wax kastoo khayr iyo wanaag ah wax walboo fiican ma faraysaan dadka ata'muruuna annaasa ma dadka iyo ummadaad amraysaan bilbiri biriga iyo wanaaga watansawna ba halmaamaysaa oo ma ka tegaysaa anfusakum nafafyaalkiina idinkiina ma ka tegaysiin macnaha watansawna ma ka tegaysaan anfusakum nafafyaalkiina wa antum adinkoo weliba tatluuna alkitaaba kitaabkii aqrinaya afalaa tacqiluuna kuwa caqli qaadanaya ma noqonaysaan miyaadan caqli qaadanaynin wastaciinuu war kaalmaysta bisabri sabr iyo wasalaati salaadba wa inaha ayadu waa salaadii lakabiiratun waa tii ku weyn way ku culus tahay oo lama imaan karaan ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucaya maahane kuwa markay salaada tukanayaan salaada ku khushuuca oo salaada ku macaansada oo ay og yihiin ama ay qirsan yihiin inay rabbi hortaagan yihiin subxaana watacaala qiyaamihii aakhirana ay aadayaan oo ilaahay ay la kulmayaan kuwaa ma aheen inta kale salaadu way ku culus tahay salaadu way ku weyn tahay salaada agtoodu aad bay markaa ugu weyn tahaye salaad iyo sabir kaalmaysta wastaciinuu waxaad u kaalmaysataan umuurihiina adduun iyo aakhiraba bisabri waasalaati waa laba hub oo waaweyn waa laba arrin oo qofku hadduu ku dadaalo wax kastoo masaa'ib ahna ay u fududaanayso wax walboo khayr ahna uu gaarayo in badanna uu ku sugnaanayo inuu diinta ku dhaqmo waa sabirka iyo salaada weliba salaadii sabarkaa laga hormariyeye salaada laftigeeda sabir u baahan sabirku waa shay muhiim ah wastaciinuu kaalmaysta bisabri sabr u kaalmaysta umuurihiina iyo wasalaati salaadba wa inahaa salaadu waa ayadu lakabiiratun waa weyn tahay way ku weyn tahay oo way ku culus tahay oo lama imaan karaan ilaa cala alkhaashiciina kuwa khushuucaya dushooda maahane aladiina khaashiciintaasoo yadunnuuna malaynahaya yaqiinsan macnaha annahum ayagu mulaaquu inay la kulmayaan rabbihim rabbigood wa annahum ayaguna ilayhi xaggiisa raajicuuna inay u noqonayaan xaggiisa in loo celinayo kuwa yaqiinsan ma ahee inta kale way ku culus tahay buu dhaha ilah subxaana watacaala laakiin qoladan way u sahlan tahay qoladani sidii loogu talagalay u tukanayaan qoladani way uqumayaan oo way u istaagayaan ilaa dadkaa ilaah subxaana watacaala in aan u khushuucaynin maahane kuwa way ku culus tahay wastaciinuu kaalmaysta oo gargaarsada bisabri waasalaad wa inahaa ayadu waa salaadiiye lakabiiratun waa tii ku weyn ilaa cala alkhaashiciina khaashiciinta iyo kuwa khushuucaya maahane aladiina kuwaasoo yadunnuuna yaqiinsan yaqiininaya oo daninayoo malaynahaya macnaha yaqiininaya annahum mulaaquu rabbihim rabbigood inay la kulmayaan wa annahum ayaguna ilayhi alla xaggiisa raajicuuna inay u noqonayaan markaa yaqiinsan inay u laabanayaan yaa bani israa'iila reer bani israa'iilay udkuruu xusa oo xusuusta nicmatiya nimcadaydii allatii taasoo ancamtu aan nimceeyey calaykum korkiina wa annii anigu fadaltukum waxaan idinka fadilay cala alcaalamiina caalamka dushiisa waa zamankoodii caalamkii markaa jiray kaasaan idinka saramarsiiyoon idinka fadilay waayo waxyaabo fara badan ayaa la siiyey ilaah subxaana watacaala nimcooyin fara badan ayuu markaa u qabtay waxyaabo fara badan baa loo sameeyo ilaah wuxuu tilmaamay subxaana watacaala waxaa laga dhigay muluug waxaa laga soo saaray ambiyaalo waxaan idinka dhigay muluug waxaan idin siiyey maa lam yu'ta axada min alcaalamiin caalamka inta joogta waxaan markaa la siinin oo zamankoodii markaa jiray yaa bani israa'iila reer bani israiil